ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maleeshiyaadka maamul goboleedka Puntland Soomaaliya shalayta ku dhuftay ribaaxa la xaalday iyagoo weerar ku soo qaaday deegaanada fadhiisimada hore ciidanka qaranka. taliyaha aaga bariga ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Sareeye Guuto Cali Barre Xuseen ayaa saaka halkaasi ku soo bandhigay warbaahinta dawladda u soo bandhigay gaadiid ay ka qabsadeen shalayta weerarkii ku soo qaadeen maamul goboleedka Puntland ciidanka qaranka aaga hore. dhacdadii shalay bishoo ahayd 4 ka dhacday muxuu ahaa jidkan u dhaxaya tukarraq iyo laascaanood oo maamul goboleedka Puntland uu ku soo xadgudbay iyagoo doonaya inay jidkooda u galaan dadka maraya iyo safra wadada maraya halkana ku dhibaateeyeen dadka wadada maraya. waxaanu ka warhelay habeen hore oo bishu ay 4 ahayd in jidka ay ku jiraan baabuur 2 ah ilaa subaxii waan xaqiijinaynay waxaanu ogaanay 7 subaxnimo markay ahayd inay jidka ku jiraan gambadha meel ku dhow ay ku jiraan. ka bacdina waxaan u dirnay cuntubiyo ciidanka qaranka kamid ah isla markiina way heleen rasaas bay isweydaarsadeen iyagoo waxay ahayn niman jidgooyo ku jira isla markaa wax laga qabsaday gaari halkaa taaganoo nambarkiisa iyo wixii baad aragteen. gaarigii kale wuxuu araray isagoo dhaawacan waxa bulshada iyo dadkuba sheegayaan oo shacabku ka jiiday xalayto baabuur dhayna oo deegaankuliyay ka jiideen meesha la yiraahdo qurac dheero isagoo baaba'ay oo rasaas goysay. dhaawacoodii ilaa shalay galabtii wax lagu gurayay dhulka xalay wax maqlayay qoliyo TV-ga ka hadlaya oo Puntland oo leh waxbaan laynay waxbaan dhaawacnay hadday wax dilaan hantidooda kama carareen dhaawacana kama carareen baabuurkii kale wateenna kama carareen oo shacabku maxay ahayday halkaa uga makaxayeen xalay fiidkii qurac dheero. waxaan leeyahay ama aan filaynay xukuumadii hore tagtay inay tan aqli dhaanto ama la yimaadaan wax ka duwan wixii hore laakiin iyaduna waxay bilowday weerar iyo jidgooyooyin. waxay la tahay annana inaan u diyaar garoobi doono intaa waxaan ku baaqaynay ciidanka iyagoo siinayay inaanu isdhaqaajin nabadgelyada inuu adkeeyo inuu awaamiirta u hoggaansanado xukuumadda oo halkaa uu joogaano ka dhaqaaqay. gudoomiyaha gobolka Sool Mudane Cabdiqani Maxamuud Jiire oo isagu taliska guud ciidanka taliska aaga bariga ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland kala qayb galay soo bandhigista hubka iyo gaadiidkaas ay ka qabsadeen ayaa isagu halkaas ka hadlay. generaalka taliyaha aaga General Cali saraakiisha kale dhamaantii waxaad ku salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. marka koowaad ilaahay baan u mahad celinayaa runtii inuu samay waqtigan sida aan wada ognahay shalayto waxaa maleeshiya beeleed Puntland oo ka tirsan maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliyada aan deriska nahay walaalaha aan jaarka nahay oo anagu dhibaatada aan nacabnahay ay jidkooyo ku soo qaadeen dadka shacabka ah ee deegaanada tukarraq iyo gambadha iyo eeriyada u dhaxeeya ilaa laascaanood eeriyada wadada la maro jidgooyaha ee halbowlaha ah. dadkaas runtii maleeshiyada soo wadatay 2 gaari si generaalku cadeeyay labada gaari oo maleeshiya beeleedka Puntland ka tirsan ay ku soo qaadeen weerarka anagoo fulinayna oo isxakameynayna ahdaaftii iyo siyaasadii iyo go'aamadii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ciidamada qaranku way isxakameeyeen weligoodna way isxakameyn jireen. jawaabtoodu kaliya waxay noqotay inay maleeshiyaadka dadka deegaanka iyo isu socodka gaadiidka iyo nabadgelyada xumeynay meesha ugu jira inay ka kaxeeyaan. nimankaas rasaas bay fureen dhibaatay u geysteen dadkii ciidanku waad aragtaan waxay la tahay war la qabaxay Soomaalidu tiraahdaa furkoodii iyo dhacoodiiba waad aragtaan gaarigaas laan gurusalka cusub
bay kaga carareen meesha kii kalena waa ka gubtay dhibaatadii anoo kuma farxano dhiigooda laakiin dhibaatadii iyo wixii ay gaadheenba iyo wixii dhaawac iyo meydba ay ka gurteen meesha runtii ninka deni la yiraahdo deni waxaan leeyahay waxaa dawladnimadaadii ku dahfurtay dulinimo waxaan kaaga digaynaa inaadan isku dayin mar dambe adiga iyo saaxiibadaaba inaad dadka difaac ciidanka qaranku waxay awaamir ku haystaan inay dadka nabadgelyadooda ilaaliyaan inay xuduudda jamhuuriyadda Soomaaliland ilaaliyaan in ciddii soo gasha halka ay cawaaqib xumo kala gudmo doonto waxay mar walba u heelan yihiin inay nabadgelyada ummadda iyo la noolaashahooda ilaaliyaan aad baan uga mahadcelinaynaa waxa cadeyn ah oo markhaati aan idin sheegno waka calaamadihii dawlad goboleedka Puntland ee Soomaaliyada aan walaalahanahay jaarka nahay anagu aan dhibaatadooda jeclayn gaadiidkoodii iyo cadeymahoodii waa kuwa waraaqihii laga furtay waxa loo sameeyay waraaqdan oo waraaq fasax wada marisa oo loo sameeyay oo loogu talagalay inuu ku dhaafo fasax sahanka abaaraha bay yiraahdeen marka waxay ugu talagaleen inuu ku dhaafo meel marka been abuurka ay waxa socon mayso runtii waxaan uga digaynaa mar labaad oo in ay faragelinta qaawan ay Soomaaliya ku hayso jamhuuriyadda Soomaaliland inay ka waantoomaan inay nabadgelyada madaxweynuhu ku baaqay madaxweynaha jamhuuriyadda nabadgelyada uu ku baaqay inay nabadgelyada qaataan baanu ka codsanaa dadka masaakiinta walaalaha aan nahay mar rabna inaan hadii maalin walba xadgudub inta leeg dadka lagu sameeyo muddo marka waxa cadeyn ku waa kun waraaqahoodii waxa waa Puntland waka calankii Puntland iyo calaamadeedii wata waka wakaas wad garanaysaa waa calaamadii maamul goboleedka Puntland waraaqihii iyo dokumentiskii gaariga laga saaray waa kan wax aan cadeyn lahayn oo soo taasila anagu waa naga harsan marka waxaan ku soo koobayaa insha Allah anagu waxaan jecelnahay inaan dariskeyga nabad kula noolaano inaan nabad bixino laakiin waxaad ogaataan in xuduudda Soomaaliland ay ilaashan tahay cidna aan ku soo xadgudbo وبرخض عمر أحمد ربانتا دولة جمهورية الصومال لن لصعنات